Soomaalida maanta ummad ahaan iyo qaran ahaan midna uma bad qabto oo waxay maraysaa heerkii ugu xumaa taariikhda dheer oo uu jiray unuga Soomaaliyeed. Waxaa dhintay Soomaalinimadii, qarannimadii iyo islaamnimadii Soomaalidu ku ahayd ummad jirta oo magac iyo mabda'ba leh. Waxaa dadka taariikhyahanka ay sheegaan in Soomaalidu ay leedahay cadow badan oo muslim iyo gaalaba isugu jira, kuwaasi oo dana badan oo siyaasadeed ka leh dhulka iyo dadka Soomaaliyeed. Soomaalidu horta waa ummad boqolkiiba boqol muslim ah, 10 milyan iyo wixii lagu daro oo ah tiro ahaan waa ummad haysata dhul aad u ballaaran marka loo fiiriyo tirada dadka. waa ummad leh xeeb aad iyo aad u dheer. waa ummad ay ku wareegsan yihiin 150 milyan oo Afrikaan ah oo naga diin duwan. waa ummado fara badan oo adduunkaahi uu damac kaga jiro khayraadkeeda iyo badaheeda, tii oo ay islaam tahay, tii oo ay jiraan ururo xag jiraho badan oo diini ah. Soomaaliya markaan dib u laabto, Soomaalidu waa qaran, sidaasay aaminsan tahay inay tahay qaran. xornimadii qaatay 1960kii labada dhinacba Somaliland iyo Soomaaliya isku darsadeen. laakiin arintu sidaas ma aha marka ay taagan tahay aragtida reer galbeedka iyo tan Ethiopia. Ethiopia waxay rabtaa wadankan inay soo ceshato, dekadahan inay qaadato, sida kaliya ay ku sameyn kartaan hadda adduunkii oo indhihiisu shan uu yahay oo soo jeedo ma dhihi karto wadankii intaan ku duulay ayaan qabsaday. xuduudaha jira, qaramada midoobaa jira. waxay rabtaa dadkan inay bedesho. 30 sano ha ku qaadato, 40 sano ha ku qaadato, 50 sano ha ku qaadato. ardaydaas jaamacadaha ka soo baxaya fikirka hadda 20 sano ka hor qofka Soomaaliga uu ka aaminsan yahay Ethiopia ma aha midka hadda uu ka aaminsan yahay. qofka sideedoo kale 50 jirka ku dhow fikirka uu ka qabo ma aha qofka 30 jirka fikirka uu ka qabo, ma aha qofka 20 jirka. ninka 10 jirka 20 jirka oo Hargeysa jooga waxa u sahlan inuu xiriir la sameeyo kan Addis Ababa jooga marka loo fiiriyo kan Xamar jooga. sidaas ayaa rabaa in sheekadu ku sii socoto, Soomaalidu is sii nacdo, kala sii fuquuqanto. disintegration of state and society ba Soomaaliya lagu sameyn. hakala jabaan qoys qoys, qabiil qabiil, caa'ilad caa'ilad, fariiqa fariiqa, maxay ahayd madhab madhab, wax kastaba ha noqdaan. markaasaa balkanization lagu sameyn, tuula lagu hagaajin oo la oranayo idinkaas xukuma, idinkaas xukuma, idinkaas xukuma. marka ugu dambeysana dissolution baa lagu sameyn oo lagu laqaya gabigaad oo dhan. waxaan u malaynayaa the script is going on exactly the way we saw it from the beginning. waxaa dhici doonta ilaahay naga koriyo inaan goobjoog ka noqono. waxaa dhici hadda waxaa loo kala hormaraya Ethiopia ninkii raalli ka noqon lahayd madaxda goboladan yaryarka iyo tuulooyinkan hadda sameysmaya. qofkii Ethiopia raalli ka noqon lahayd ninbaa Ethiopia ciidankii ugu horreeyay ku faana inuu keenay, ciidan Ethiopian wadanka soo geliyay. ninbaa ku faana inuu wasiiro iyo garab iyo uu ku leeyahay Ethiopia. ninbaa ku faana wax walba waa la soo dhaafay. ninbaa markuu jago isu sharaxayo Ethiopia iska soo sharxa oo Ethiopia Addis Ababa asagoo taagan yiraahda anigu waxaan u tartamayaa dowlad goboleed hebel. haddaysan raalli ka noqo ay tahay sheekadiisu, waxaa iman doonta in lagu kala hormaro ku biirista Ethiopia. loo tago la yiraahdo gobol idinka mid ah nahay, aniga iidaa gobolkeyga, wixii aad danahood ka leedahay waa ku siinayaa, waxaad ii noqotaa maxaa la yiraahdaa backup ii noqo, ii ogolow, iga difaac kuwa kaloo igu dhedhegan,
laanlaankan kale oo dhan iga difaac adigan ku hoos tagaa diiwaanka gasho sida baasboor la mideeyo la yiraahdo waa la mideynayaa tareeno laga sameeyo jidad laga sameeyo dekadihii raggi fadhiya Ethiopia noqdaan konsuliyadahan iyo waxa la baabi'iyo nin district governor ama whatever ah oo Ethiopia hoostaga u yimaado tartiib ummadan Ethiopia loo hoosgeeyo taasa soo socota maantana midig leeyo shisheeyo magan u yahay maabki dunidu ka baxo ooyaan baa lagu dul qoray maantana midig leeyo shisheeyo magan u yahay maabki dunidu ka baxo ooyaan baa lagu dul qoray qofka Soomaaliga gaala tahay ma ka yeelay waa ku dilaa waxa laga yaabaa wax gaalnimo keena inuu ku dhaco laakiin okay qofka Soomaaliga Ethiopiana tahay hadda marxaladan la joogo ma ka yeelay kula dagaalama laakiin siday wax ku socdaan haddii ku sii socdaan waa jiilasha soo socda waa aaminayaan inay yihiin Soomaalinimaduna inay sida hadda gobolku iyo dawlad goboleedku u yahay inay tahay waa aaminayaan waa laga dhaadhicinaa waa la gelinaa waxbaa la soo baraa jaamacadaha ugu badan wax lagu bartaa hadda waa Ethiopia wax la soo barayaa dhaqankii luqadii hidihii wixii oo dhan dadka Soomaalida ah waxay ku jiraan tiih ay ku jiraan intii 40 sano ku dhawaad ah dawladii Maxamed Siyaad oo caburin jirtay faa'iidooyin badan ayay lahayd ugu yaraan qarannimada ilaalinaysay ugu yaraan qabkii ilaalinaysay tiihay ku jiraan qofka Soomaaliga ma yaqaan wuxuu rabo nin waliba walaalkiisu ka baqaya nin waliba walaalkiisu jaasuusaya nin waliba walaalkiisu darajo ku helaya labada tuulo oo isugu dhow ayaga magacyo la kala baxay oo kala cararay oo kala turkay tii Ethiopia u hormartaana libinta leh hadda sida la aaminsan yahay tii Ethiopia u hormarta ayaa libinta leh Ethiopia anay saaxiib la tahay Kenya anay saaxiib la tahay hebel anigu caankana leeyahay hadaan nahay daarood hadaan nahay hawiyo hadaan nahay dir hadaan nahay qolba qoys sheego kulligiin waa lidu adeegan haya والله وأرن ربح وأرن جرتا إثيوبيا بالمثل مثلا مركان كسوق هذا لبد دولة قبلات أما لبد قبل وصوماليا كان أي هذا وحيابي كده عيبولا حاو دولو يدين عاس لبد قبيل أي قبيل التاجرية مركي التاجر كان كلا ودريمو إن التاجر كي كلا وفد ودر إثيوبيا وبالانس garanaysa kii ay hub siinaysa waa kii ay taageertaa kii kale ay hub siinaysa kii ay taageertaa la pressure la saaraya kii oo dacwaha misna imaanaya magaalo ayay al-shabaab ka saaraysaa berito waxaad moodaa inay isu baaqeen ayadii al-shabaab habeen madoobay ka baxaysaa dadkii oo dawladnimadii rabay oo ku farxay al-shabaab oo sawir laga duubay ama YouTube laga sameeyay ayay al-shabaab inta usoo noqdaan madaxa ka wada jarayaan ما آمن سنة إثيوبيا ربطة إن سومالي نبات كدعبو إثيوبيا جرد قيد أيكو عيار إسا سومالي دا قبيل قبيل قبل دقمة تولة سومالي دا مركو وإني فهمان جرد إثيوبيا عيار إسا ماشا أمدن إني سيكال الدشو قبائل كالصوماليا أو دمانتو
way adeegsadeen Ethiopia iyo Kenya way adeegsadeen qof ilaahay u naxariistay maahane dad baa waxay isu malaynayaan maryahoodu inay u cadcad yihiin hebel baa adeegsaday Ethiopia hebel baa soo qaatay Soomaaliya let's speak guys true anga runu hadal annaga ma maqnin mana aan dalka ka maqnayn dalka joognaa yaa waaye reerka aan Ethiopia soo adeegsan tell me yaawe yaan mingisto soo adeegsan yaan meel soo adeegsan yaan hubka ka soo qaadan si qarankii Soomaaliyeed loo burburiyo yaawe idan Soomaalida waa dambiile yaalbana markaasaan waxaan ku darsanay inta shir laynoo qabto in layna yiraahdo see xubnaha u kala qaybsanaa maanta waxaan akhrinayay joornaalka qosol oo oy gobol nin jooga oo madaxa wuxuu leeyahay dawlad Soomaaliyeed ma dhacayso mana sugnaanayso reerka iyagu haddaanay intaa helin what the hell you are talking about maxay tahay reerka iyagu haddaanay tahay dambiilaba tahay xukun waxaad ku xukuman tahay in lagu xukumo maxkamad baad saaran tahay qaran Soomaaliyeed baad burburisay ummad baad baabi'isay jiil baad baraha ku daadisay qaxooti baad malaayiin ka dhigtay gaalaad malaayiin ka dhigtay yaa ka dhigay it's you not other one it's not America it's not Europe it's not Japan it's not Kenya nor it's Ethiopia it's only Somalis who killed themselves waayaga waa idin sheegay runta maaha wallahi billahi inaanay ahayn ciyaar intay Soomaali iska dishay iyo inta Ethiopia ka dishay yaa badan Soomaali intay dishaa badan Soomaali intay laysaa badan Soomaali intay balaayo ku soo hogaamsaa badan one script wiilal yar oo yaa sheekada iska wadaan maanta kuna kor loo qaadi afar maalmood waxa weeyaan Puntland baa garab la siini markay waxoogaa joogto waxaadana afar maalmood kala Somaliland baa garab la siini shan maalmood nin xamar jooga ayaa ma arsaba tagi oo inta si warwareegi shanta kale ku kala lagu hagaajin kismay haddana kiimaan mar waxa dila joog maxay ahayd digil imirfle iyo baydhabo iyo meelaha shariifka loo yeeri abihin baad fuudka la cabaysan awgin oo lagu gubi dhageystaan idin sheegay ay wadan dilala hadba soo qasayo qaybiyo xukun baqorsho yahay ay wadan dilala hadba soo qasayo qaybiyo xukun baqorsho yahay idagaysta ma kala jeclo daarood iyo maxay ahayd dir iyo hawiyo iyo isaaq iyo nin kasta waxay kala jecel yihiin malaha kulligiin Soomaali baatiin dalkaana loo dalleey ciyaar ma waxaan dii sheegayaa su'aal yaro gaaban baan oo fahamtaan baan idinku siin kolka inagu laba qoys saddex qoys aan dhismo u qaadnay iminka in Mareykanka iyo Yurub dhoofinayno in beenta sheegayno imisa habeen walba oromada soo gasha ma la socotaan boorama sheegay hadda ma la socotaan inta habeen walba oromo soo gasho mesela boorama dadka kolka loo maar suuq aad u fiirsato ilaan maalin walba dumar cusub baa yimaada caruur cusub baa timaada taqriiban habeen walba 20 qoys way soo gashaan oo isjiidanayo oo deena waa masaakiin u bandhanaa socda ayaa soo gala magaalada dir dhaba la dhaay lahaan jiray maanta sayaale ma la socotaan dir dhaba Soomaali baa lahaan jirtay maantana Oromaale Ahmad midib male boqolka sano soo socda ma kontonka sano soo socda boorama inay noqoto magaalo Oromo hodib male dhalinyartan u sheegaya soo koraysa mustaqbal baan higsanaynaa le mustaqbalku haduu yahay ka Yurub eedu yaacaysan anu ka jawaab maayo waa baab kale laakiin haduu mustaqbalku yahay Soomaali inaad tahay oo dawlad yeelan doonto oo wadankan yeelan doonto oo warshada ka samaysan doonto
sida maanta aan u naallo maya weligeedna lagu gaari maayo wada cayrin waa wala wareegi maalin dhaweyta marba waxaan idhi haddii muddo yar aan joogno dadba kuma harin waddanka ani waxaan meel intaan ka dhoofay Soomaaliya gudaheeda iyo Somaliland gudaheeda ayaa jirtaa oo 600 kilomitir socday waxaa dad kuma arkin meesha geel ma ku arkay in yar waliba geelka gaaban aan ku arkay meelna waxaan ku arkay dad ma ku arkay dad ma arkin dad قال كعيا كتق إلا قرب كتق هذا تولين يرى مثلا حواس عط بل أنت نيروبي كبح وحتى كتا إلا صدق كيلومتر لو مليون نقف بالمري سوالي ودن بحكوها 2 مليون ودن وحنعيها كاتشرة بقول لي كنت مليون أو مارتي أو جيرانه والله لقي سفوض بالله لقي sideedaba siyaasadaha reer galbeedka laba waxaa xukuma waa dhaqaale oo resources la yidhaahdo iyo diin loobiga diinigaahu waa aad u xoog badan yahay asagaa dhaqaajiya siyaasadaha dhaqaaluhuna meeshiisu ku jiraa soomaaliya baddaas aadka u dheer iyo ummaddaas tirada yar in la milaal rabaa 91 dagaalkii ahliga soomaaliya markuu ka dhacay ummadii waa la qaxiyey xerooyin qaxootiya looga sameeyay Ethiopia iyo Kenya iyo Yemen iyo meel walba waa la raray ummadda ugu dhaqsaha badan oo Europe iyo North America iyo Australia loo qaaday ahayd Soomaalidu waxaa loogu talagalay xerooyinka qaxootiga oo transitka ay ku yihiin in lagu dhaqan bedelo horta ilmahooda caruurtooda oo xagga markay tagaan 10 sano 20 sano kadib uu soo baxo jiil cusub oo diintiisi bedelmay waxaa la bedelay ummad 10 milyan oo Andalus ku tiila la bedelay 10 milyan oo waliba waxa la bedelay adiga 800 sano ka hor la bedelay 10 milyan oo hadda waqtigan joogta oo ummadii oo dhan adduunkii oo dhan uu noqday tuulo yar uu noqday bedelkeedu waxba qaadan maysa Allah laakiin u suuroobi weyse mama aysan garan kumisiga sirtiisi goboladii dhulkeeni hadba loo koobay garyaqaanku waa kuma yagooyay go'aankii aysan garan kumisiga sirtiisi goboladii dhulkeeni hadba loo koobay garyaqaanku waa kuma yagooyay go'aankii Soomaalidii qabkii iyo qiimihii iyo isla weynidii iyo Soomaalinimadii iyo qaranimadii waa ka sii dhimanaysaa nin Soomaali aamini maayo ninka Etoobiyaanka ayuuna ka baqaa na aaminsan yahay marka wax aanan lagugu dayayn ma jirta Soomaaliya mid baan idin sheegay dhageysta haday markaan meesha soo socday baa qof baa ila hadlay wuxuu yiri aniga xogaa annagana waan ka yar cabsanaynaa bal xabashida iyo Mareykanka waxa ka sheegin kowdi waxaan iri waxa iyaga aan kala cabsan waayay kala cabsanayo toosama ayagii waxaan kala cabsan waayay la Mareykan wax ka qodweyn ma jireen shacbigay ka baqaysaa hadda dadka shacbigii weli waxa ku nool fikradii qarannimadii Soomaaliya waxa ku nool Soomaalinimadii waxa ku nool islaamnimadii waxa ku nool fikirkii ahaa shalay Ethiopia waa anagii jabinay waa anagii hilib ciiriin barnay waa anagii Addis Ababa geynay waa anagii weli nool laakiin marka la duugo hebel oo la duugo hebel oo la duugo hebel oo uu soo dhasho hebel iyo hebel iyo hebel aan waxa soo dhan la socon oo kaliya waxa uu og yahay ay tahay Ethiopia inay Soomaaliya difaacdo inay Soomaaliya u tahay meesha marjaca ay ugu laabtaan xaq siyaasadeed iyo xaq dhaqaale iyo xaq kasta maalintaas ay imaanaysaa ayadoo tartiib haddaan la isdaba laakiin marka la leeyahay Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu ahaa Ethiopian oo lagu yiraahdo wiilwaal wuxuu ahaa Ethiopian oo lagu yiraahdo xawataaka waxay noqotay Ethiopian oo loo hagaajiyo taalo looga hagaajiyo waxa lagu leeyahay Axmed Gurey Maxamed Siyaad Baraan kulli ku soo dareen liiska hormalayna mardhow markii saal lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay qaran matihida qabiil anaga iga tirsan baad weliga ahayd anaa ku xukumi intaba ma ahayn lagu hiri
أنا ذاك ترسلت وياه حيل سلاس بأورنجري منالخ بأورنجري. It's not, this is a Bedouin tribes or Somali or part of the Ethiopian empire. You can meet him وياه وعلى كل شيء عسكري according to them. وأنا كل رأي سنة يساعدك. قوتيو إتالكي لايقو وذا قدر جيري قومية جعيلكي قرشئيو دنكيسي قصيدو يكودي قولكي عليكي تيمعتي أما مورتي وابري قابن قابضودي محاقاتي بهري ميئي قطوبي كربلا وياشان كوباني مدك الدور بيري قسين ايبا ايدي قرين سيحلو مكوبي قرن كيما قدو ميسان دل انتا وكوبا بيري كربلا وياشان كوباني مدك الدور بيري قسين ايبا ايدي قرين سيحلو مكوبي قرن كيما قدو ميسان دل انتا وكوبا بيري الشباب meesha uma joogto ummadda Soomaaliyeed wiilasha yararka ahna maskaxda laga siray inay kamid yihiin in lagu adeeganayo in ajnabi ku dhex jiraan inta way isku jirtaa waxay u joogaan interestiga cadawga Soomaaliyeed haddii la tirtira maanta ma tirtirayaan iyaga deerayaan they created themselves mar rabaan inay tirtiraan waa gabdha wiilal yaryar weeyaan 2,000 3,000 waxaa lagu tirtiri karaa in less than a month. They wouldn't do that. It gives them the justification for them to be involved in your affairs on a permanent basis. hadda haddii aan dib u fiirino 22 sano ee la soo dhaafay dagaalada ahliga markay bilaabanayeen waxa dagaalamahayay oo rasaasta ridahayay oo wax dilahayay oo wax duminahayay waxay ahaayeen dhalinyaro gadaalna odayaal baa ka taagnaa waxa dhimanahayo dhimashadu ku badnaydna waa ayaka waxa dhaawaca uu ku badnaana waa ayaka meeqa dhabarka ka jabtay qofka dhalinyarada markuu dhabarka ka jabo spinal injury la dhaho ama nuqaacu shawki ayaa farbeedka lagu dhahaa ama saxangullaha dhabar xariirtada xariiriya xangullaha gudaha ku jira markuu dhaawac gaaro meeshuu ka gaaraba intii ka hooseysa waxay noqonaysaa paralysis ay noqonaysaa hadduu qoorta ka gaarana waa quadriplegic baa la dhahaa gacmihii iyo lugihiiba ma controli karahayo maxaa sii dheer waxaa sii dheer saxaradiisa inuusan ogaanaynin markay baxayso markay hayso kaadidana inuusan ogaanaynin waxaa sii dheer inuusan dhalayn ma dhalahayo marka waxaa sii dheer marka sariir buu ku aruuri wadamada hormaray sibay rehabilitation ku sameeyaan sariirtii ku aruuray ayaa jirkiisa cunaysaa sariirtii markaasoo boog barida u badan barida ayaa boog weyn boogtii marka ma daawoobayso markaasay boogtaas fidaysaa ilaa baridii dhammayd ay ka dhammaato hilibkii ee markaas ay lafihii barida ay soo baxdaan saxariir haddii hadda la weydiiyo dhalinyarada caynkaas ay ku dhacday marka dambena eventually korkiisa siduu u googo-ahayo sababtoo blood circulationkii baan jirin dareenkii baan jirin dhiiggii ma soconahayo
korkiisaa googo-ahayaan nabarraa ku yeelan ma raysanahayaan marka dambena aakhirka wuu ku dhimanay asagoo ur iyo ciddiina u adkaysan la meeshuu degan yahay urkeeda iyo maaragtay siliceeda iyo siduu ku nool yahay haddii la weydiiyo asagoo silcahaya ee xag aakhiro u socda maxaa dhaawacaan kugu gaaray haddii la dhaho ma sheegi karahayo ma sheegi karahayo wuxuu ku gaaray wuxuu u dagaalamaya ma sheegi karahayo ninkii dagaalka geliyey ee abaabulahayey uma imaanahayo waxaa la rabaa qalab buu u baahan yahay leg bag wax la dhaho u baahan yahay oo bowdada loogu xiro oo kaadida ku shubanto haddii kale mar kasta waa isqoyni kaadidii baa sii gubaysa markaasuu korkiisa sii googo'i kii dagaalka geliyey uma imaanahayo dib dambe uguma soo noqonahayo islaantii dhashay ayaa la saxariiraysa oo inay rogto dhankan u rog iyo dhankan u gedi iyo inta ka qaad iyo saxarada ka qaad iyo nadiifi nin weyn oo dhallinyaraha 18 jir hooyadiis baa ku saxariiraysa gabadha walaashiis xataa ma uma tegi karto oo ma saacidi karayso waa hooyadiis uun qofka ka warqabi karo waa hooyadiis qof kaloo u tegi kara ma leh urkiisa iyo maaragtay xaaladdu uu ku sugan yahay islaantii hadday marka dhowr jeer leeg baaga ay soo gadato oo $25 ka soo bixiso oo marka dambe ay awoodi weyde ee ay u tagto ninkii dagaalka geliyey ama hogaamiye kooxeed ay u tagto albaabka kama geli karayso sababtoo lama yaqaano ma yaqaano war hebel baan u socdaa war ka bax bay leeyahay askarta meesha joogto waxay leeyahay ka noqo meesha shaqo kuguma lihin way saxariiraysaa waxay rabtaa leg backs in loo soo gado way saxariiraysaa wiilkeedii oo arkaya horteeda ayuu jirkiisii googo-ahaya markaasuu ku dhimanaya markaasuu ka dhaqaaqahaya maxaad ku dhimatay aakhirana waxaa taalla maxaad ku dhimatay waxaa laga yaabaa xabaduu riday inay dad badan dishay intuusan isagu dhaawacmin oo dhabar ka dhaawacmin maxaad ku soo dhimatay malaa'igtu waxay weydiinaysaa war maxaad ku soo dhimatay naftaada maxay ku dhimatay ood ku dishay reer hebel baan u dagaalamay miyuu leeyahay guri islaameed inaan dhacaan rabay miyuu leeyahay xukun inaan gaaro ayaan rabay miyuu leeyahay xaabada dabka lagu shido ayaa dhallinyarada soomaaliyeed ay ahayd 22 sano aan soo dhaafnay ilaa haddana ay yihiin ilaa ay hadda u fiirsada wiilasha tiknikada saaran oo dhan waa 18 jir 20 jir 22 jir 23 jir waxay diyaar u yihiin ayagoo baabuurkaa saaran xabad oon lahayn bullet proof haysan ee dhinacyaha ka saaran xabad kastoo ku soo dhacda mid ka mid ah inay ku dhacdo ay diyaar u yihiin asbaabo kala duwan xaabo dabka lagu shido oo aan lahayn hadaf ay hiigsanahayaan hadafka keliya waxaa weeye ninkan wuxuu awoodaa qaad in uu isiiyo xoogaa qarash ana isiiyo qaad iyo qarash ayuu wuxuu ku baabi'inaya gacantiisu wuxuu ku baabi'inaya mustaqbilkiisii asaga balse mustaqbilkiisii asaga maahee mustaqbilkii carruurta dhabarkiisa ku jirta mustaqbilkoodii uu baabi'inaya ma garawsanaynaa hadda ma ka soo noqon karnaa dib ma u fakeri karnaa ma ka soo noqon karnaa arrintaas ma garan karnaa arrintani in ay halaag iyo hoog noo horseegdiiso ma garan karaynaa keennii dhaawacnana inay saxariirtaas u dambayso kii dhintana su-aashaas inay ka soo horrayso oo maxaad ku soo dhimatay ee uusan aahaa dhahahay ma garowsanaynaa dadka dagaalkana gelinahaya dan gaar ah ay naga leeyihiin inayna jirin danahooda gaarka ah shakhsiga inay nagu gaaraan bay rabaan berrina hooyaashan inay albaabada ka xirtaan bay doonahayaan car waxaad i tustiin car waxaad i tustiin wiil dhabarka ka jabay ee dhaawacmay ee paralysis ah qabiil intuu u tago u gurmada
lacag u aruuriya dhaha aan dibadda u dirno will never happen familkiisa hoose ayay saaran tahay aabihiis hadduu lacag leeyahay ama walaalihiis lacag leeyihiin ama dibadda ay uga soo dirahayaan ayakay saaran tahay laakiin aabihiisna uma dagaalamaynin gurigiisana uma dagaalamaynin walaalihiisna uma dagaalamaynin gabar walaashiisoo la kufsanahayana kama celinaynin ee asaga nin kale ujeeddale uusan fahamsanayn ayuu ku dhaawacmay why naftu waxay ku habboon tahay nabad iyo nasteexeeni cawd iyo farxadda lama helo nabad la'aanteeda nuurka iyo iftiin kuma naalo nooluhu dhammaantiiyo nimcadiyo barwaaqadu waa nabadoo nagaataaye naqa iyo doogu waa nacabkoo la xooraaye manaaxo nimay naxdintuu nasiib wadaagaane dibadsada waa iska dhaafaa dadkaaga loo dhinta dhulkaaga la fiirsada dhexda waa loo xirta shabaab dib u socod mujrimiin dhiig yacab weeye xoolaha dadkooda xalaalsaday shabaab magac dhalinyaro inaad dhahdeen magaceenna ma aha kuma samaynaysiin badiil baan rabnaa inaad dhahdeen shabaabka kuwa la dhahayo dhiiggay cabbaan waa kuwaasaa dadka dilahaya annakuna waxaana la dhahaa dhalinyaro waa kana waxaanan dhisaynaa waa inaad dhahdeen not in my name waa inaad dhahdeen magacayga laguma duminahayo waddanka magacayga dadka laguma dilahayo magacayga dadka laguma barakicinahayo magacayga dadka colaad loogama samaynahayo magacayga dadka laysuguma dirahayo magacayga dadka cabsi laguma gelinayo magacayga dadka laguma mugdi laguma gelinayo magacayga naceeb iyo colaad iyo xasad iyo xiqdi laguma gelinayo inaad dhahdeen baa laydinka rabaa haddii aan isla fahmno arrintaas waan wada guulaysanay qiil dambe ma harin iyo diinto lagu qaraabtay iyo diinto lagu qaraabtay kenya ayaa waxay ku murmaysaa xuduudda badda soomaaliya iyo kenya in leenka dheer ee badda kala qaybiya labada waddan kala qaybiya in leenka ay kor u qaado sidan hadda wada jeegnabo dhul la eg intaa 38 kilomitir ay la wareegaysaa xuduudda labada waddan waa taasaa soomaalida aragtaan leenku waa inuu saas u socdaa soomaalida kale kenya waxay ku murmaysaa leenka inuu kor aado dhanka bari aado ayay ku murmaysaa taas u xalaaleynayso 38 kilomitir oo badda soomaaliya ah oo isku weer ay u xalaaleynaysaa taasoo ay ka helayso 5 ceel oo shidaal taasoo ka dhigaysa kenya waddan aad taajir ugu ah shidaalka halka soomaaliyana dadkii biyo la'aan ay u dhimanayaan ceelal la'aan dadkii caafimaad la'aan wadooyin la'aan iskuul la'aan ay dadkii u baba'san yihiin kenyana ugu faa'iideeyo madaxweynaha kenyana ugu faa'iideeyo dadkiisa kenyaanka taasi mid suurtageli karta ma ahan waad ogtihiin waddankii waxaa badbaadis 16 dhalinyaro ah aniga waxaan mar walbo aaminsanahay in dhalinyarada soomaaliyeed maalin maalmaha kamid ay kici doonaan laakiin waan ku rajooynaa waan ku riyoodaa maalin maalmaha kamid inay dhici doonto waana sugayaa dhalinyarada soomaaliyeed ee ka taga qabiilka habiyi waxba idinma taro daarood waxba idinma taro isaaq waxba idinma taro dir waxba idinma tarto cid wax idin taro malahan wax idin taro magaca soomaaliyeed war caafimaad ma haysataan waxbarasho ma haysataan waxba ma haysataan muxuu qabiil idin tari muxuu qabiil idin qabtay 20 sano ayaa waddanka ayuu burbursanaa qabqable ayaan u dagaalamina maxay idin qabtay idin soo kordhiyeen bal xisaabtama oo wax isku dhufta marka waxaa u baaqayaa dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed ee arrintan xoog iska saaraan nin walba videogan arkan waxaan leeyahay walaalo sheegaday haddaad awoodid inaad video samee haddaad awoodid dad badan inaad isku aruurin kartid isku aruuriyo arrintaani arrin muhiima laga dhigo hal lagu banaan baxo wallaahi billaahi maanta idinka qofka etoobiyaanka ama kenyaanka ah ama sangurida kasii shashaysa ayaa wax walba kala qaalisan laakiin soomaaligu sidaas u eegi jiray waxaa jira odayaashii ingiriisku qortay la odhan jiray tima cadda la odhan jiray ee ciidamadii dagaalkii labaad inay yidhahdeen sangaridan hanagu darin caaniyo hilib waxaanina ma cunno annagu kasaafahan iyo waxaad sheegaysa arabakida iyo ma cunno yidhahdeen sidaas darteed ciidan gaaray ahaayeen laakiin iyagu maanta waxaan ogahay inanka jaamacadda ka soo baxay masteradkii inuu ina yaroo keeneena sallada u qaadayo oo lankuruuskar ka saarayo waayo midna gaar buu ka yahay midna waa turjumaan midna waa darawal intaasaan u qaybsannay waxaan quursan jiray beri ka qashaafi jiray hore qasab ma iigu noqoto dani ma iigu qaabato
dulnimo maqaayibay qayrkay ma tuugsaday mahantiyay cadhiilib buureed qacda waranka fiiraha qaniyada halkay mudan weli maan qandaysanahay waabay qaraariyo maqatuubay jahannama waqtiga isqaliibaye anay qoontu iigu taal ma xadaatanii qaban ma adaani kala qubin udhahayga socoto maarunaan qarsoome qarkama iska tuura anu waxaan qabaa aragti soomaali ah soomaali ilaa NFD ilaa Jabuuti anu weli shantii uma rumaysana shantu waa isku hooyo waa isku soo hiloobaan ayaa lagu heesi jiray bariyo shantu waa isku hooyo waa isku soo hiloobaan markana maxay oran jireen nin lagu saddexdii maqnaadana way soo socdaane nin lagu seexdo ha seexan soo jeedo si weyn u foojugnow waxaas ma hees bahed mise waxayd murti idinku waxba kama garanaysaan dee maanta martaba qaran buu lahaa iyo sharaf buu lahaa iyo sharaf buu lahaa martaba qaran buu lahaa iyo sharaf buu lahaa iyo sharaf buu lahaa sawaaxiliga u dhow sinaawi dalku xukumo suudaan iyo liibiya iyo zimbabwe iyo mozambique zambia iyo guinea bissau amaba saxaraha galbeed central afrikaanka iyo waliba suud nimanka xiga sanciya soonaha cumaan masaarida reer suways sacuudiga xaramku yahay sandaladii reer kuweyd intuusan ku neeflaya sirteena bay wada hayaan ceebteeni baa suuqa waran dadkeeni baa sayladaha sunuud lagu baayaca ودع جبي سديسي قرنكي مولعي ودع جبي سديسي قرنكي مولعي ودع جبي سديسي قرنكي مولعي iimaankooda iyo waxay aaminsan yihiin horta qabiilka ayaa ugu sarreeya waa wax lagu beer laxabsan karo oo madaxdii Soomaaliya soo martay oo dhan qaab qabiil ayay wax ku kala qoqobi jireen diinta ayaa ku xigtay qarannimada ayaa ugu hooseysay diintiina waa ta loo isticmaalay in maaragtay tawaa'if iyo madaahib iyo wax iska hor imaanaya iyo in la isla dukan iyo in la isgaraaco iyo in la isdagaalo iyo madaxa la iska gooyo ayay keentay waa dhab wax badanaa ka jira hadalkaas dadka Soomaalidu ay takoorto takoor waa dhaqan fool xun oo faashist ah waa markaad ka xanaaqaysiin midabkiina madow ilaahay idin dhaliyay in laydinku canaado oo laydinku leedihiin reer waa midab gumaysteedii adigii baa qof muslim oo walaalka oo Soomaali ah ayaad xaqiraysaa oo tahaysaa waa reer hebel qurafaad sheeka jirino qurafaad la sheekeeyaa ka sheegay laga sheegay dadkaasi marka affirmative action inaan u sameynaa qoran in waxaa lagu ciilay dhaqaalaa lagu ciilay dhulka yaala tacliim baa lagu ciilay sababtoo ilmahooda wax ma bari karaan qof aan tacliin lahayna dhulku yaalaa mar kasta soo ma garan socially baa loo ciilay oo waa la takooray waxaan rabnaa markaa affirmative action inaan ilmahooda ka canug kastoo 5 jir gaara inuu helo school free ah iyo bas soo qaada inuu helo wasaarad kasta inaan ku xisaabino dadkaas meeqaa ku jirta agaasime
agaasimo meeqaa ku jirta oo dadkaas waxaana dadkaas in dib Soomaalidu dhaqankeeda ay u baarto inay waxaan faalsi yihiin ayna jirin markay wax bartaan oo ay dhaqaale yeeshaan qabiilka ugu waaweyn qabiilada ugu waaweyn oo ugu faanka badan ee faanahaya ayaa gabdhahooda ku yaacaya oo guursanaya wiilashoodana siinahaya waxa waa dhaqaale la isku gumaystay dhaqaale ayaa la isku gumaystay dhaqaalihii marka inay soo gaaraan kor loo soo qaado oo ay soo gaaraan ummadda soo tacliintii inay kor loo soo qaado ay soo gaaraan hablaheennii darajada hablaheennii fitnada dhacday baan intusaya hablaheennii darajada dayaxaa dusheen iyo dahab lagu mataalee dabuub iyo odhaah iyo diin iyo walaalnimo midkaa diin wadaagtaan fitnadu halkay nagaga dhacdaan tusaya hablaha ninkaa diin wadaagtaan iyo gabooyaha u diideen ee tirahdeen ma geyo meeday day qalluuliya dahabiya naciibaba maanta gaalaan diin lahayn jamaykaan baa u dalaq yidhi madow baana duufsaday oona daa ku odhan kara madugowde taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin ma ku dayashiyo ka sii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee damambulkiyo damagooniya iska dayo dadka la noqo dadka madugowde taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin ma ku dayashiyo ka sii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee damambulkiyo damagooniya iska dayo dadka la noqo dadka Just one example. 1973 تقريبا waxaa la sameeyay baxthi baaritaan waxaa sameysay shirkad Norwegiana oo shirkadaha xagga badda batroolka baaridiisa ugu haysta waad ogtiin Norway adduunka wadamada ugu horeeya way xagga baaritaanka batroolka badda laga amaanka bariga dawladda Soomaaliyeed bay waxay la gashay heshiis inay baaritaan ku samayso Kismaayo ilaa marka agteeda way sameeyeen baaritaankii mudday wadeen sanad ku dhow 6 bilood siyaado sanad waxay soo saareen report intii yarayday baareen waxay ka soo saareen reportkaas wuxuu dhigayay journalkii shirkadana way ku nashriyeen wuxuu reportkaas dhigayay mandiqadaas yar oo ay baareen oo Kiamboni ka soo bilaabanaysa ilaa halkan inay ka heleen 3 god oo waaweyn 3 god oo waaweyn wuxuu ka badan yahay bay yiraahdeen reservaha Norway waxaad ogtiin wadan adduunka wadamada batroolka ugu qanisan waay batroolkooda xataa ma isticmaalaan meel bay dhigaan intaasoo bilyan generationada konton generation oo soo socdahaba meel loo dhigayaa bay leeyihiin marka reservagooda waxaa ka badan bay dhaheen 3 god oo halkaan ka helnay waxaad garan kartaa marka interestiga lagu siinayo mushaharooyinka lagu daldalaya adeer bilaash maaha sadaqana maaha waana meeshii hadda la isku haystay marar badan aad maqasheen badda Kenya way dalbatay Kenya waxay leedahay annaga leh maya adinku ma lihiidin maya oo buuqa hadda uu ka jiro buuqna la galiyay Soomaalidana dadkeeda yimi iyaga buuq galiyay buuq kuma jirin ma ku jirin buuq dhulka Soomaaliya xuduudihiisu buuq kuma jirin ma ku jirin ba adiga waxa kugu filan qofka wax soo sheegta orod meesha ku soo sheeganayso ku soo ashtako aniga dhulkayga waa aqaan xuduudiisa uu leeyahay waana ii caddahay hadaa ashtaka qabto orod adiga tag bah meesha ka soo ashtakoonayso Soomaali xuduudeeda waa la yaqaanay
dowlad qaran bay ahayd registraday ku jirtaa meel walbay ku jirtaa united nation bay ku jirtaa waa la yaqaan maxaa aniga igelinaya aniga dooda igelinaya dooda waxaa geliyay dad soomaaliyeed baa geliyay oo mas-uuliyiin isku sheegay iyagaa geliyay dooda maray memorandum saxiixaan maray mid kale saxiixaan maray khilaaf ya disputed area maxaa disputed aniga gelinaya dispute dhulkayga maxaa dispute geliyay maxaa geliyay dispute iyagaa keenay dad soomaaliya baa keenay ma garanayno waxay u keeneen marxaladan aan marayno nabiguna wuxuu yidhi sal alla alay wasalam zaman ma jiro ilaa midka ka dambeeya unbaa ka sii xun zamankan aan marayno waxaan shaki ku jirin inuu yahay zaman fitno wixii nebi maxamed ka warramayna in badan oo ka mida waa haynaa waxna horteen bay dhaceen waxna hadday dhacayaan waxna weli waa soo socdaan ummaddani dhibka maanta haysta meel kastood fiirisaba waa wax ciddii garashii caqli leh xanuujisa waa wax lala murgo waa wax lala seexan waayo waa wax aada loola xanuunsado ruuxii damiir ku jiro wax lala xanuunsado way qaybsantay cadowgeedii bay u jabtay waa lagu soo duulay dhulkeedii baa la haystaa khayraadkeedii baa la guranayaa ayadii baa laysku sallidayaa waa gaalkii shaati wuxuu u soo xidhanayaa inuu danaheeda iyo masaalixdeeda ka shaqaynayo ayadiina dhexdeeda inay wax fahanto oy xaqiiqada fahanto oy maslaxadeeda fahanto oy wacyi iyo garasho yeelato ma hayso waxaa dheer waxay noqotay daaq nin walba u bannaan nin alla ninkii rabo uu daaqo cidina ayna cid ka xigin wax alla wixii afkaar kharibnaa oo dhan ayaa ku soo wajahantay afkaar khariban oo dhan adduunka jirtay kaniisaddii baa ka shaqaysanaysa tansiirkii baa ka shaqaysanaya carruurtoodii iyo gabdhahoodii iyo wiilashoodii baa la gaalaysiinaya magacyo kala gedisan dan lagama leh wax sii weynba ma aha afkaar shaati islaam huwan oo inxiraaf iyo fasaad xambaarsan meesha waa iska bannaan tahay nin walowba wadaantaada ku tuuro takfiir iyo khuluwi iyo madhabkii khawaarijta ayaa magaca jihaad lagu soo geliyey markaasaa dhiiggooda lagu bannaystay oo culimmadoodii lagu laayay oo dalkoodii lagu burburiyey oo wax waabayeela aan lahayn shiica soo gashay oo oodeedii wadata 1969kii waraaqihii hadda waan ka soo tegay laakiin projectorkaa baa idinku tusi karaa haddaad doontaan maxamed xaaji ibraahim cigaal allah u naxariistay wuxuu yimi halkan new york press release buu ku qabtay sawirkiisii waan hayaa ay new york times soo qortay new york times baa soo qortay press release buu ka bixiyey new york maxamed xaaji ibraahim cigaal wuxuu yidhi baaritaan ay samaysay united nations oo dowladda soomaaliyeed ay kula jirtay iyo kambaniyo dowladda soomaaliyeed ay heshiis la gashay oo baaritaan sameeyey wuu soo dhammaaday wuxuuna sheegay baaritaankaasu soomaaliya uranium badan inuu ku jiro oo reserve ah oo weyn ayay baaritaankii soo saareen tasriixaad intaa ka badanna ma bixinayo buu yidhi laakiin arrinkaas waa intaas joornaalka marka si tacliiqiyey new york times baa warkaadii sii waday waxay dhaheen khubarada aan weydiinay oo warsannay waxay yidhaahdeen adduunka oo dhanba waxaa ku jira 8 milyan oo tan oo uranium quarter of that wuxuu ku jiraa soomaaliya bay yidhahdeen
quarter of that waa idin keenaya journaalka dowbad bidaliil أنا وجبك كما كان جورنال كيس كنت قرنت نيويورك تايمز قرنت quarter of that waxay ku jirtaa yiraahdo Soomaaliya that is the uranium petrolka hadalkama taagna hadda way idin sheegayeen Norway intay soo saartay markaasa dood la gelin oo la gelini qaylo iyo buuq tayib ilaa maalintii 94 ki ka soo bilow markii uu horeysay 2000 kii carta ay la sameeyay dawladeedii hatta yoomana hada kambariya waxa la saxiixanaya petrol baris qolo hebel wala saxiix qolo hebel wala saxiix qolo hebel wala saxiix qolo hebel kulligood waa hayna rekoorkooda maxaad haysaa oo la saxiixaysaa yaa tahay adiga yaa tahay maxaa haysaa mas'uuliyadee haysaa dalkee haysaa gacanta ku haysaa ya ummadaha horumaray waxay ku hormareen wax soo saar waxay ku hormareen hal curin waxay ku hormareen shaqo dheeri ah wadanka Mareykanka ayaa adduunka ugu qanisan ilaahayna ku manaysta technology iyo cilmi iyo xoolo iyo barwaaqo iyo dhul weyn iyo dad badan wadanka Mareykanka qof wadan bini aadan ah oo ka shaqo badan ma jiro wadan ka shaqo badan ma jiro injineeradoodu iyo dadkooda scientistiyaasha ah saacadaha ay shaqeynayaan mooge intay seexdaan raashinka ma dhargaan oo calooshii iyo baridii ma weynaadaan balse wuxuu ku leeyahay gurigu workshop ku leeyahay gurigiisa ayagoo labaha isu imaani markaasay wax hindisi weekendigiisu wax alif waxbuu soo saari wadankan ad ka dhalateen ee adinku mustaqbalka u tihiin ee Soomaaliya la dhaho wax soo saar ma laha whatsoever nin Chinese xamar dhex maray Chinese ki soo maartay wadooyinkii sameyn jiray bari hore iyo meesha tiyaatarka la dhisi jiray ee wax u dhisi jiray Soomaalidii Maxamed Siyaad Barre madaxda ka meel la Barno Bajante fiisha goberno kafeen saasalaale iyo wadaadka Marwaas la raado fagaaro weyn oo halka xamar weyn ku yaal ayaa subaxii la isku yimaada halkaas laga sheekeeyaa journal xigtii October la raado imagana kuwa kale oo maxay la jamhuuriyad la raado bay halka la taagan yihiin iyo halka waa la wada sheekeenaya maxaa la yiri kana waxa dadkii buu saaw eeg waa dhalinyartii mutacallimiinta oo dhan markaas uu dadkani meen shaqeynay buu markaasna ma shaqeynayaan maxay qabanayaan ee shaqo ma hayaan wasaas iska sheekaysanayaan xagee wax ka cunaan buu markaasna xaafaduun bay tagaan dad bay wax la cunaan wasaasaha dawladnimo way idinka dheertahay buu inta xoog gaasoon diblash wax ku cunayo xoog sheekeynayaa intuu wax ku cunayo bilash wax ku cunayo dawladnimaha sugan yiri waa nin kaliya oo fagaar lagu reesaw eegay ma aha inuu riyoonayo ma aha inuu khayaal ka sheekeynayo waa runtii aawad waxa weeyaan waa 70-nadii markaan uu sheekeynay ninkaas awleen meena sanad waa maxay sanad deesweydii maanta dawladda Soomaaliyeed gabigeedii bay isweydii ilaa kismaayo ilaa law yacdo halkay martay dawladda waxa ka soo haray wax saa wax u cunay yaa ka soo haray oo waliba fariida والله waxaan u balanahay inaan wadankeena wax barano faraha xaliiri dumaan kulladan yahay dadku malama yeesheen maangaabka taladiisa waa maqana jooge midigtu waa maacimana hadday bidixdu maqan tahay wallaba mataano hosha maamulayaan muruqiina maalo lukamira ku beero macdanta dahabka mujiya wanaaga waxaan idin leeyahay nafteeda ilaa mexico joogan wadanka uu shaqeeyo ninkas waxa waxa uu dadka ka hawada assalaamu alaykum maalin dhaweyd waxaan tagay Malaysia waxaa jirta gobol yar oo laga gooyay oo Malaysia laga gooyay oo dadka muslimiinta lahaayeen oo la yiraahdo hadda Singapore waad maqasheen soo maaha waad maqasheen Singapore ma Singapura
ma taqaanaan masaaxadeedu dhul ahaan intay tahay biliis dadkiina juqraafiga iyo thaqaafada caalamiga leh ila Soomaalidu waa wada siyaasiyiin do you know waa 624 kilometro square waay wadanka dhan oo lagu sheegayo la yiraahdo Singapore ma taqaanaa Soomaaliya meesha ka weyn Singapore dawlad ahaan waxa ka weyn gobolka Banaadir iska dhaaf Soomaaliya gobolka Banaadir just gobolka Banaadir baa wuxuu ka weyn yahay dawladda adduunka dawladaha ugu qanisan kamid ah ee la yiraahdo Singapore gobolka Banaadir baa ka weyn masaaxa ahaan iyo dhul ahaan maaha Soomaaliya oo dhan maaha koonfur oo dhan maaha shabeellooyinka iyo Banaadir maaha just gobolka Banaadir baa ka weyn isaga ka biyo badan isaga ka beero badan isaga ka xoolo badan 624 kilomitir malaha biyo malaha oo baad malaha oo xoolo malaha oo waxay keensado petrol malaha biyaha dibadda looga soo daabulaa still wallahi billahi waa ceeb adduunka يعني عيب ويه إلهي عندنا مظلمية وهذا كان إذن كبل عباية سنغافور 2010 international transparency waxay ka soo gashay numberka saddexaad adduunka ayay ka soo gashay transparency corruption la'aan waxay la tartamaysay Denmark iyo Sweden iyo Finland iyo Norway iyo New Zealand bay number 3 iyo number 4 kula tartamaysay Soomaaliya oo muslimiina oo sunna oo shaaficiya waxay ku jirtay the last in the list 198 dawladood tan ugu dambaysa corruption baba tuuganimo qashin markaas waxa rabtaan ilaahay hadiyad inuu idin siiyo inuu yiraahdo hooya dawladnimo iyo ammaan iyo nabadgelyo iyo dal hooya that's nonsense waxba kama jiraan sharciga ilaahay kuma jirto kitaabka ilaahay kuma taalo waxba looguma hayo Soomaali kitaabka ilaahay wax looguma hayo dad tuuga waxba looguma hayo dawladnimo looma hayo qarannimo looma hayo dad tuuga waxba lagu soo gaareen looma hayo iyo kuwa taageeraya dabana shaqeynaya u saabtumaya PhD holders masters baa waxay u saabtumayaan juhalo wadankoodii baabi'inaya iyagii bay baryayaan iyagii bay tuugayaan iyagii bay safiir iga dhig wasiir iga dhig hebel iga dhig muxuu ka dhigaa his nonsense nasani nagaray waamidan illa allah hayne nasani nagaray waamidan illa allah hayne dhalinyaro wadankiina muxuu ii qabtay iyo maxaan ku haystaa iyo muxuu ii yahay ha weydiinina wadankayga sideen u hagaajin karaa maxaan u qaban karaa waa inay idinka timaadaan maalintaad weydiisid wadanka muxuu ii qaban karaa maxaan ku haystaa waa ku baahday shaqo la'aan baan ku ahay hoobaalkii aan ku sii soconnay baad ku sii socotaa sababtoo qof wax qabanaya ma jiro waxaan wada leenahay waxaan weydiinaynaa wax kale oo jinni oo cirka ka yimid iyo wax kale inay wax qabtaan markaas annagu aan ku raaxaysano it will never happen ma dhacayso shan qodob cidii laga helo qodobka koowaad oo sheegaya dhulka in laga faa'iideysto dushiisa iyo hoostiisaba wixii saaran qodobka labaad oo sheegaya waqtiga la haysta in laga faa'iideysto oo yacni waqtigu aan innaba lumin qodobka saddexaad oo sheegaya bay leeyihin inuu noqdo ikhtisaasaadkii ama wixii aqoomihii loo baahnaayo o dhan inay ummaddani tijaabinayso inay kobciso ama se dhaliso qodobka afraad oo sheegaya inuu nidaamka meesha yaallaa mustaqiriya ama mid degan uu yahay ka shanaad oo sheegaya thaqaafada ama biliifka ama culturkay dadkani haystaan inuu yahay mid ogol inay aqoontani hore u socoto shantaaba idhaahdaan ciddii laga helo dunida halkay doontaba ha ka deganaanaatee waxaa qasaba inay horu marto waxay u baahan yihiin jiil cusub oo kaca oo qarannimadii sharaftii dadnimadii soomaalinimadii islaamnimadii
soo celiya lagu wacyigeliyo horta khatarta soo socota ninka hargeysa jooga iyo ninka muqdisho jooga in la aaminsiiyo inay yihiin walaalo inay isaga dhow yihiin shaqana isku lahayn Ethiopia in ayaga dhexdooda heshiis la dhigo in ayaga dhexdooda nin walba uu tanaasulo si maaragtay loo soo celiyo qarannimadii iyo haybadii iyo sharaftii Soomaaliyeed walaalayaal dawlad yani la'aan bay dhaantaa annagu waxaan nahay jiilkii ku soo koray oo ku awayban ka dambayna odayaashii naga horreeyayna waa naga horreeyayna way soo arkeen waxaanu aragnay dawladnimo iyo macaanka ay leedahay saas darteed baan waxaan meesha ordaya iyo waxaan socda magacay doonaan ha sheegtaan diin ha sheegtaan islaam ha sheegtaan wax kale ha sheegtaan ayaanan ka aqbalahayn dawlad la'aan iyo qaran la'aan iyo ummadnimo la'aan wada jirta baan wax ku keenaynaa kana ka aqbali min we're not going to accept that ها دولة حتى ضعيفة بانوغرون أو قرنة أو مدنماء قبل يعاو وقت وينوير يا السميي أو عن سومالي ذا كجهد ليو وقبل سومالي نبو وقبل وقت يسله وقبل قفك حشونة يا إن أول حلال لقول لي وقدم يقول قدونه فإذا يولها على كشنت جسله دايمين إلهي يهي لو دايستكبر يهي سيدو دونه يهي روحنا دا كورا كرين وحود دلو وحود دايو وحود دول أبورايو دوني دا استبطال ودرجة خالقة سيدو دونه يلو ودرجة خالقة متكو دو يسيو دربدي كقاضة ميدان دولار هاي مدامن كوبو عشاه أبار درن dadku uu ka naxay iyo dirir hore khayraad deeqdiisa weeyaan waxaan ahay nin dalaba waxaan ahay nin dalaba biyo diiday oo jabay waxaan ahay nimaan doobi culin 10 diraacood waxaan ahay diirkiisa iyo nimay dhuuxu dirire waxaan ahay nimaan dadab galay dirirka cawleed waxaan ahay nimaan dabxeer wadan duufaanada dhaca waxa diilyada igu wacan daaqaday go'ay darbiga dhiso darbiga dhisaya marqulad dumiye saaskii dhaayaha dagoogmiye qalbiga dhaxal ku aafeeyay Soomaalinimadii way dhibatay qalbiga dhaxal ku aafeeyay daarahan burburay dabashan ooyaysa dooxa ilmada soo rogayo dubayda yeeraysa waxa reerba kii ugu daraa u fiirso ma reer kasta bahal nacasa hortaagan waxa reerba kii ugu daraa ugu dulmeerayo ee doqon haco iyo dabaa loo dalqaminayo ama dirciyadeedii raga aqoonta leh dalka wuxuu tari lahaa ama dirciyadeedii sandahay bay iga degi weyday war dalkani muu goblamin dalkeenu muu goblamin oo nin ragii kama dawaarayn diriday xariiqan dirida markii cid wax weydiisan waayeen diriday xariiqan ragii daabadaha ciilawgeed waxay daba keena soo sidaan bay iga degi weyday qarandidu daluub maahmaah baa jirta gabayga waan ka baxayaa Soomaaliyeed baasha qarandida leeyahay waa doqon xayawaanada Ilaahay abuuray bay ugu doqonsan tahay god bay qodaa ugxanteeday dhigtaa godka ma gashayadu weerka baalka yare leeyahay Soomaali arag ayaa ka cuna Soomaali maanta aniga maxay laaniyo Soomaaliya maxba loo kala go'ay amxaarkii dalku uu furayay Soomaaligi la ilaaha illa Allah Muhammad rasuulullah laha masaajidka isoo ku jiro tukanaya la tooganaya qarandidu daluun bay qodaa waana diba joog waxay dadaaliyo xoog duubiyada maasho dugsigeeda weerun baahantiya maalma dabadeed wax la dira dadkayga jiroontii doraa dugan waxay Soomaali 20 sanadood dabada diifta u la jiiftay iyo maanta waxay dabacsan yihiin bayga degi weyday wata farmaajo la soo oriyay waxay maanta dabacsan yihiin bayga degi weyday dibso qofku waynu ku maqlaa Ismaaciil Umar Geelan gabay u tiri hayaadeer bigu hayaadeer mucaaridka la heshiiban ku uri hayabu siiraaye saasoo kale la hadlay dayibna saasaan la hadlaya waxaan idhi dibso waxa tira dibso istaag soo dhaqankeeni Soomaali baan geel jirayaal baynu nahay dibso waxa tiraahdaa ratiga diida dhuuxyada ratiga qalqaaliga dibso baa la yiraahdaa dibso waxa tiraahdaa ratiga diida dhuuxyada
dabar laguma jiideen hadduu daadax kuu yahay waxa dacayda loo qowlala ayuusan kaa didin shiniduba ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay shiniduba dowlad bay leedahay iyo maamul daahira ilaahay baa yidhi ku dayda shinida boqor bay ku ururaan aan shaqayn oo u shaqeeyaan waxaa la barayaa cilmiga shurakada la yidhaha shiniduba dowlad bay leedahay iyo maamul daahira iyaduba kala dambayn iyo shaqaysaban ku doogtaa halkay soomaali 20 sano diifta dabadda ula jiiftay iyo maanta dadkaygu waxay dabacsan yihiin bay ga degi weyday haddii duul ilaahay maxaa dhacay markaa maxaa dabadda inagu maarmeeriyey ilaahay qur-aankiisu ku sheegay bal dhagaysta haddii duul ilaahay dariiqii ka leexdaan dumarkiiyo carruurtuu shaydaanku didiyaa dabadeed ka haystaa ninkii doonayow taa arrintaa daliilkeedu diintay ku taalla anumaan odhan wuxuu daayinkan yidhi وقال الله تعالى إن الله لا يغير قوما حتى ما يغيروا بأنفسهم دليل كيد وحو يهي إلا أي دلوبان إلهي مدور شدتك داعده وعن ديبيو إيغا آيها حسابها الدنبية قيامها الدنية هذا عندك حشونين قيامها الدنيا وحيد دمي دمي وحيد دي 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 وحيد دقي دقي وينو دالي بلد الكينيو dad wixii nool daba qabashada aan dadaale nabadoone damamburkiyo dabagooniya iska dayo dadka la noqo dadka الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. My brothers in Somalia and all over the Muslim world, but specifically to my Somali brothers, I say to you, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Skawaran, Arimuashide, Rarka Kawaran, Nabat Kante. I want to give a small message to you, for indeed the Somali people are very dear to my heart, and I love you all for the sake of Allah. It is time to end the Qabaliyah, to end the tribalism, to end the dissension and disunity that has caused so much pain and suffering in Somalia. And it's time for all Somali people to come together. All same deen, same kalima, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And as we as mankind, as our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam says, kullukum min Adam wa Adam min turab. All of you are from Adam and Adam is from dust. So whether you be Ishaqi in the north, or whether you be Mahajjarten from Muntiland, or whether you be Hawiya or Marrihan in Mogadishu, Kismayo, it doesn't matter. We are all brothers. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. So we want the mercy of Allah. We want to see the suffering and the conflict and the pain ending in Somalia. We have to come together and unite, inshallah ta'ala, in order that the mercy of Allah should descend upon all the Muslims around the world. But I'm saying for specifically, inshallah ta'ala, for the brothers and sisters in Somalia, Somaliland, Djibouti, Wajir, Garissa, Mandera, Ogaden, inshallah, to come together as one country again. We first have to give to Allah what Allah wants from us, in order for Allah to give to us what we want from Him. Like Allah says in the Hadith Qudsi, يا عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي فيما أريد لكفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد لأتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. So I say to you, my Somali brothers and sisters, إني أحبكم في الله, I love you for the sake of Allah, and may Allah make us of those in the day of Yawm al-Qiyamah when the call is made, أين المتحابين بجلالي اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. When Allah calls out and say, where are those who have loved each other for my sake? On this day I'm going to put them in my shade, on the day when there is no shade except my shade. Brothers, sisters, wahidu, say la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and unite for the love and for the sake of Allah. Inna hadhi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. This ummah is one ummah, no more. And to our brothers in Shabab, يعني شوية شوية يعني هلك المتنطعون, those who are extreme, they will self-destruct. You know, خير الأمور أوسطها, the best of conditions are those that are in the middle. بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا. The Prophet says, make things easy, don't make them difficult. Give glad tidings, don't chase people away. Come to the middle path. Unite, O people of Somalia, for the love and for the sake of Allah, and Allah will make you one of the greatest nations, inshallah ta'ala, that the world has ever seen. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخ. ummadoo kale maana isku meel la u jeeda
haddii xaajo muhiima muftaxeeda la waayo macluumaadka adduunka iyo meertadaa la dayaa meel fog baa la dhugtaa ruuxna ruux kama maarmo mar haddii la ismaagana mar baa la iscafiyaa ma dhammaata colaadoo maqashaada dhex taaliya ma ilowdu dan maahan qalbi meel ku adkaysto madaqayrka horseediyo maslaxooyinka diidana ma rastuu salfadaa dagaal maatada wiiqana makaanku dumiyaa dal masiiba ku raagtana muskaa loogu jiraa hadal aad u macaaniya mowqifaan soconayna mooye suu noqon doonee soomaalay dan muhiim iyo haddaad waana maqlaysid wax maamuusan lahayn oo magacooda ku raaciya maal gargaar lagu sheego meelna kugu fillayn inta aad mahayo iyo meeyay ay ku jirtaan mugdi baad huridaanoo markab qud lagu keenaya maqoonaad sugataanoo madaal kii idin siyaad magantiisa tihiine mana sheegad sheeyiya mihintooda iyo beenta waad ka maarmi kartaan dad iyo humays maqashaan oo idinkoo isku maanaho isku mowqif ku taagin mawlahay baridaan mar in laysku filnaadana martama u xirataan oo maraa waaxid dalkeenna ma guraanka iyo keyrka rabbigay ku manaystiyo macdantaa iska taaliyo miidamaad dhurataanoo kulligiin maalqabeen iyo malyaneer roqotaanoo waddankiina macaaniya mahadsaan gacantiin war maxaa maskaxda iyo miyirkeen ka qaaday war miyaydna arkayn murugmaarugshaya wax aan ka macaashnay war miyaydna arkayn mudnaantii dhaqankeenna iyo halka maanta aan joogno war miyaydna arkayn ismaandhaafka khilaafka haddii aan laga maagan meesha ayna dhigayso war miyaydna arkayn mashaqada dalka taalla war miyaydna arkayn masiibooyinka muuqda war miyaydna arkayn mahadhooyinka beermay war miyayna arkayn dilka aan marna joogsan war miyayna arkayn inta ruux mudanaa iyo dar muhiima la laayay war miyayna arkayn malaayiinta qaxaysa war miyayna arkayn inta moolka budlooyinta maayadaa ku dhammaatay war miyayna arkayn dadka meel kasta daadsan war miyayna arkayn macaluusha iyo cayrta war miyayna arkayn musanowga dhallaanka war miyayna arkayn qurbaha maatada joogta midda ay la kulmaan war miyayna arkayn dadka waaye maciinka magaciinina sheegta war miyayna arkayn dhalintiina maxbuusan war miyayna arkayn kuwa jeelka ku mayday war miyayna arkayn mawaadiinta dhammaatay war miyayna arkayn mahuraanada quustay war miyayna arkayn magaca sii dhimanaya war miyayna arkayn dadkeennoo kala maarmin sida loo kala meeray war miyayna arkayn midnimadii ummaddeennoo mahayooy ku dhammaato maanta taagan xaduudyo war miyayna arkayn mariidkii isticmaalkoo misna taagan agteenna inuu maamulo ciidoo meel cidlaa uu ka qaato marrabaan la gumaysana maanta aad ugu dhaarsan war maxaa maskaxda iyo miyirka in ka qaaday mixnad aan baxahayn iyo masiibooyin la yaab leh meel kastoo laga sheego allaahuma naajaynaa muslimiintu dhahaan anna xaaje maruurtiya midda haysa dadkeenna meel kastaan ka caddeeyo murtidaan ku tilmaamaya malaayiin xil u waashay ayagaa isu muuqdayma waxbay maqlayaan kiligaa wax marooqsay ku mashquulsan yihiinoo kulligood madaxweyniya mudane aan dhacahaynba mid kastaaba rabaayo maare loo heli maayo mar horaa lagu daalo waa midday isku seegtaye aloon mawjada oogin waxna aan maldahaynin dan guud halka ay ka maroortay aan marqaato u yeele qof kastoo magac guud iyo matalaya dadkaas iyo mas-uul ciidda u dhaartay kii muwaadinahayow maanta maalin adduuniya badan weeye la joogo anna xaaje maroortiyo dan guud meelka dhaceeda aan marqaato u yeele qof kastoo magac guud iyo matalaya dadkaas iyo mas-uul ciidda u dhaartay kii muwaadinahayow maanta maalin adduuniya badan weeye la joogee wax markaa ku hor yaalla masna aad sahlanayso berri meel xuntagayiyo wax masaalaxa keenoo dadku ay mahdiyaanoo madmadow aan lahayn labadaa kala miiroo miisaamoo kala saarto midka qayr kala qaata haddii laismaqli waayana mudda waa berri toole mawdna waa mahuraane ilaahuna masaabaxoo noo macin weligeen soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacayo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee damanbolkiyo damagooniya iska dayo dadka la noqo dadka soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacayo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee damanbolkiyo damagooniya iska dayo dadka la noqo dadka waxaanu leenayo adduunka naga dibdhigay amriga hubkiyo bambada madadkeeni danaheeni dowladeeni damiirkeeni mee dabka dhiga nabadoona dabka dhiga
danteena wadoona dabka dhiga meelan amaan jirin ma aha to noloshee urugiyo xanuun qaba ma islaanima tiri waddan la kala gooyo laguma galo taariikhda ummad la kala gooyo la kala qoqobo taariikhda laguma galo bal Nelson Mandela fiirsha 27 years buu xirnaa prime timekiisii waqtigiisii noloshiisa ugu fiicnayd ayaa laga xanimay xaaskiisii iyo ilmihiisii markuu soo baxay 5 milyan way cadaanka ma wuxuu dhahay aan aar gudsanno ka waran imagine hadduu dhihi lahaa aan aar gudsanno finish South Africa ma jirteen maanta wuxuu dhahay markaa an markuu la wareegay film bay ka sameeyay markuu la wareegay xafiis maalintii ugu horeysay yim la doortay ay cadaankii waxay bilaabeen in ay boorsadiha aruursadaan baakooyinku gurtaan markuu arkay uu soo dhaxmaray uu arkay tension ka jira ayuu wuxuu ku dhahay igu yeer shaqaalaha dhan madaxtooyada ka igu yeer uu wada yeeray markaasuu wuxuu dhahay waxaan arkayaa buu dhahay tension baan arkayaa wuxuu dhahay wadankan waan wada leenahay qof gooni u leh ma jiro cadaan iyo madow kuma dayanayno dhahay wixii hore dulmigiina lagu sameeyay kuma dayanayno annaka wax afinin ilaahina wuxuu leeyahay waafuna can الناس kuwa dadka cafiya ayuu amaanahaya oo markii xumaan laga gala cafiya dadka wuxuu leeyahay marka qofkii rabo waa xor waa tagi karaa laakiin qof meeshaan waa madaxtooyadii qaranku leeyahay imaada jooga shaqaysta qof pressure idinku qaban kara ma jiro waddankeena waxaan u baahannahay dadka caynkaas dadka saas u fakaraya Nelson Mandela hadduu caradii 27 sano caradii ahayd hadduu la soo bixi lahaa ee u dhihi lahaa cadaanka aan ka saarno wallaahi inaynu dhaqaalina oo leen waana burburi lahayd South Africa waana laga kala tegi lahaa haddana waa kaas sabar waqtigaa isbedeli doona marka aad baad mahadsantihiin hadalka waa idinku dheereeyey waa mahadsantihiin waddankiinnii u noqda ha isku iloobina meeshaan ha isku iloobina hadhow ilmihiinna waxay galayeen ilmahooda maaha ilmihiinna iyo ilmahooda generationka saddexaad hadhow meelay ku damayn doonaan ma ogin haddaad meesha laakiin keennii aan hormarino si ilmihiinna ay weli dhaqankiisii ay u haystaan oo ay abtirsigii u haystaan oo ay u haystaan diintii u haystaan oo dhaqankeennii u haystaan anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone damanbankiyo damaxuuniya iska dayo dadka la noqo dadka anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiidayn aynu doone damanbolkiyo damagooniya iska dayo dadka la noqo dadka haddana cidi uma maqni adaa maslaxada haye haddana cidi uma maqni adaa maslaxada haye sokeeyahan kala margaday allowma xubaysu geli ducada mustajaaba iyo maqbuula lowka calaganayahaalahow budhadeena barkiisiyo waxaan ku qabna jacayl qiyaas kuma koobi karayno hadday caanu qubtaan ilayn daabadood la qabay waxaan dirnay daylada saadaan waacadaan qabnaa sidaa ku calow qabow qabriga oon galna dhaanta qaabkaan ahay qumatuu ku
عطوسة سومالي وغلبنتيني قبيقا قلنا دانتا قابتا نحي وماتيوك عطوسة سومالي وغلبنتيني adigu shidan tahay ani waan shidaysnahay shalow baan ka dhacayo shida waan ka xiranahay dunidana ka sheexno shabaab waadna duubteen sheekada iga dhaafeen shanta adaan kugu haya shabaqaani geliye shawahaada iga reeb sheekada iga dhaafeen shanta adaan kugu haya shabaqaani geliye shawahaada iga reeb danta diin islaamkiyo shaahid waa wax walbo la sheego sharaf male walaal haddaad adigu shidan tahay ani waan shidaysnahay shalow baan ka dhaca